السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوga waxaan ku eegaynaa falanqaynta weekend inagoo ka bilaabayna DXY. Marka DXY weekend kor ayuu kacday sidii aan rajaynay ay samaysay. Marka waxaan ka sugaynaa inay correction sidan soo gasho. Marka correction bay soo geli kartaa. Correction sidan soo gasho ay kor yeelan kartaa kor intaanay soo dhicin. Marka waxa kaloo dhici karta inay toos halkaas ay ka bilaabato down trendkii. Labadaba way dhici kartaa. Marka labadaba way dhici karaan laakiin anigu sidaan rajaynaya waxa weeyaan inay haddii xoog inta sida loogu soo dhaco kadibna correction la soo galo hoos ayaa la soo dhacaya. Marka chanskii down trendka halkaas ayuu ka bilaabmaya. Laakiin haddii imka sidaa la sameeyo correction yar haddii sidaas oo kale loo soo galo correction haddii la soo galo kor ayaa la yar aadi karaa kor kadib intaan la soo dhicin waxaa la aadi karaa kor. Marka labadaba way samayn kartaa. Marka imika anigu waxaan ku rajo weynaya waxa weeyaan in impulse dheer sida u soo dhaco correction sidaa loo soo yar galo haddana sida u soo dhaco. Marka ilaa xagga hoose waa la jebin karaa ilaa xagga hoose waa la jebin karaa. Marka waxaan rajaynayaa inuu suuqani hoos soo aado. Marka chance kasta hoose insha Allah waan ka faa'iideysanaya. Chance kasta hoose waan ka faa'iideysanaya. Marka DXY intaas ayaan ku joojinayaa. Euro GBP/USD da waxaan ka sugayaa inay correction sidaa u soo gasho impulse correction impulse. Marka waxa soo socda inuu uu suuqani kor aado ilaa laga yaaba kala bartankaas uu aadi karaa ilaa kala bartanka suuqani uu aadi karaa. Marka ilaa kala bartanka laga yaaba ilaas in la yimaado suunkaas supply suunka laga yaaba in la yimaado kor inta aan soo dhicin. Marka waxaan ka sugayaa suuqan laba dhaqaaq oo impulse ah. Marka correction yar oo dheer baa la geli karaa kadibna impulse ayaa sidaa loo aadi karaa. Marka waxa kaloo dhici karta inuu suuqani correction dheer sidaas kaga soo galo impulse correction saasoo kale ka hor intaan haddana dib u soo dhaco labadaba way dhici kartaa. Laakiin sidaan rajaynaya waxa weeyaan inuu impulse correction impulse intan oo dhan isku noqdo correction kadibna uu soo dhaco. Marka GBP/USD waxaan ka sugayaa inay kor aado. NZD/USD yada waxaan ka sugayaa inay correction sidaa intay u soo gasho kadibna kor aado correction kale kor aado. Marka NZD/USD yada waxaan ka sugayaa waxa weeyaan waa uptrend ayaan ka sugayaa. Marka chance kasta oo ay iga siiso meelahan oo kora ka sii faa'iideysanaya chance kasta oo meelahaas oo kora ka sii faa'iideysanaya. Marka waxa dhici karta inay marka hore dhici karta inay kor yar aado kadibna correction soo gasho kadibna kor kale haddana correction haddana kor kale saasoo kale. Marka NZD/USD yada waxaan ka sugayaa waa uptrend ayaan ka sugayaa. Euro/USD haddaan u imaado Euro/USD yada waxaan ka sugayaa waa GBP/USD bay la yar mid tahay. Waxaan ka sugayaa correction inta sidaa loo soo galo kadib la soo dhaco. Marka correction kan waan sugayaa correction baa imika badanka ay lacagahan bilaabayaan oo uptrend halka DXY duna laga yaabo correction down trend ama down trend keedii hore ku sii socoto. Laakiin Euro/USD dhankaas waxaan ka sugayaa waa uptrend. lacagtani waxa weeyaan AUD/USD badanka waxay la mid tahay NZD/USD yada waxaan ka sugayaa inay correction sidaa u gasho correction intii soo gasho kadibna soo dhacdo. Marka correction kaas ayaan ka rajaynayaa inay soo gasho. Haddii kalena waxaa kaloo dhici karta inuu halkan impulse dheer ka bilaabmo correction sidaa loo soo yar galo kadibna impulse kaloo dheero ilaa xaggaa jebin kara uu yimaado. Labaduba waa suurtagal. Sidaan doonayana waxa weeyaan inuu suuqani kor aado inuu suuqani korkiisa ku sii socdo. Marka waxaa dhici karta inay halkani ka bilaabmo impulse dheer kadibna correction haddana impulse kale. USD/CHF yadu waxaan ka sugayaa inay correction sidaa u soo gasho kadibna korka yar aado. Waxaa kaloo dhici karta inay hoos taasoo haddii correction inta sidaa u soo gasho hoosta hadday halkaa wada jebiso kor intaan korkaas la aadin. Marka correction dheer oo kor ayaa soo socda laakiin weli inuu bilowday ismalihii waxaa dhici karta inuu xaggan hoose mar kale soo jebiyo kor intaanu korka aadin. USD Chaba yada waxaan ka sugayaa inay toos hoos u soo aado correction soo gasho hoos haddana correction kale soo gasho hoos aado ilaa halkii la jebiyo ilaa xagga hoose soo jebiyo. Marka yada waxaan ka sugayaa waxa weeyaan USD Chaba waa down trend.